soo dhawaada saaxiibayaal akhbaraadkii ugu dambeeyey. 24 saac ee lasoo dhaafay waxaad moodaa barakac aan caadi ahayn inuu ka soconayo qaar ka mid ah dowladaha gobolka, si gaar ahaaneed Carabta iyo sidoo kaleeto dalka Lubnaan. Lubnaan oo keliya waxaa la sheegay ilaa 100,000 oo ruux inay ku barakaceen gudaha dalkaasi. Deegaanadii digniinta laga soo saaray ayay gebi ahaanba dadkii ka barakacayaan, iyagoo ka baqanaya in gantaalada Israa'iil ay soo gaaraan. Sidaasi oo kale qaar ka mid ah dalalka khaliijka sida Qatar oo kale waxay dadkii ka daadgureysay agagaarka saldhigyadii Mareykanka ama saldhiggii weynaa ee Mareykanka oo ku lahaa magaalada Dooxa. Goobo kale ayaa loo raray. Dowladaha kale ee khaliijkana sidaas ayaana dadkii loogu baaqaya in agagaarka saldhigyada Mareykanka gebi ahaanba ay ka fogaadaan. Marka dadkii qaxooti ayba noqdeen oo dalalkoodii dhexdiisa ayay ku barakacayaan. Waxaana halkaasi ka dareemaysaa marka saameynta dagaalkii soo bilowday maalinkii Sabtida ee lasoo dhaafay. Dhanka kale dowladaha khaliijka weli waxay la daalaa dhacayaan ka hortagida diyaaradaha drone iyo gantaalada ka imaanaya dhankaasi Iiraan. Taasi waxay sababtay in qaar ka mid ah dowladaha khaliijka ay ku dhawaaqaan soo saaridda shidaalka ama gaaska in la joojiyo. Cabsi weyn ayaan halkaasi ka timid, oo cabsidu waxay tahay qiimaha shidaalka inuu sare u kac ku yimaado. Waxaad moodaa hadda ciyaar kale inay gobolka ka socoto oo dhaqaalihii dowladihii khaliijka waxyaalo weyn ay soo gaartay 7 maalin ee dagaalka uu soconayo. Dowladaha qaar waatii ay ka fakarayeen inay dhanka dalxiiska iyo shidaalka dhaqaale badan ay ka sameeyaan. Waxaa sidoo kale laga baqanayaa in cunno yaraan iyo biyo la'aan baahsan ay ku dhacdo qaar ka mid ah dowladaha khaliijka haddii dagaalka uu sii socdo ama ugu yaraan la waxyeeleeyo halka biyaha ay ka helayeen. Sacuudiga oo kale wasaaraddiisa gaashaandhigga waxay soo saartay qoraal ay ku sheegeen in gelinka dambe ee shalay ay ka hortageen dhowr gantaal oo balaastiig ah oo la doonayay in lagu bartilmaameedsado saldhigga la yiraahdo Amiir Suldaan oo ku yaala gobolka Al-Kharij, sida wasaaradda gaashaandhigga qoraalkeeda ay ku sheegtay. Generaal Turki Al-Maliki oo ah afhayeenka wasaaradda ayaa hadalkan shaaciyay in 3 diyaaradood oo droonis ah iyo gantaallo ay ka hortageen. Sidaasi oo kale Qatar, Imaaraadka Carabta iyo Kuwait. Bahrain sidaasi oo kale waxay sheegeen inay gantaallo ka hortageen 24 saac ee lasoo dhaafay. Iyada oo marka beegsigaasi iyo duqeymahaasi sidaasi ay u socdaan oo khaliijkii la bartilmaameedsanayo, Mareykanka wuxuu soo saaray warbixin muujinaysa in loo iftiiminayo cidda dowladda Iiraan ku soo jeedinaysa dhankaasi iyo dowladaha khaliijka. Akhrinta warbixintaasi markaad eegto dhinacyo badan aad ka eegto, fariin ayay warbixintaasi diraysaa. Oo wargeyska Washington Post wuxuu yiri Ruushka ayaa ka caawinaya Iiraan inay bartilmaameysato saldhigyada Mareykanka. Sidee marka? Washington Post ayay baahisay ilaa iyo 3 ilo wareed iyadoo ka soo xiganaysa in macluumaadka dhanka sirdoonka ee Ruushka uu la wadaago dowladda Iiraan in Iiraan ay ka saaciday inay bartilmaameysato saldhigyo muhiim ah oo ku yaala dalalka Bariga Dhexe. Tan iyo Sabtidii lasoo dhaafay marka Ruushka ayaa la sheegay inuu Iiraan siinayo juqraafiga halka ay ku yaalaan maraakiibta dagaal, maraakiibta diyaaradaha qaada, yacni dhaqdhaqaaq kasta oo gobolka ka socda oo Mareykanka ku saabsan. Xogta waxaa bixinaya Ruushka ayaa la yiri. Tani marka waxay u muuqanaysaa in Iiraan ay ka taageertay inay dilaan 6 ka mid ah ciidanka Mareykanka, sidoo kaleeto diyaaradahooda droniska ay ku bartilmaameysadeen Kuwait iyo wadamo kale oo ay burburiyaan raadarada iyo nidaamyo difaac oo gobolka yaalay. Sidoo kaleetana waxyeello ay gaarsiiyaan ilaa 7 saldhig oo Mareykanka uu lahaa oo gobolka Bariga Dhexe ku yaala. Markaad eegto marka warbixinta Washington Post, Ruushka ilaa iminka kama uusan jawaabin. Waxayna ku soo beegantay saacado kadib markii dowladaha khaliijka ay sheegeen inay ka fiirsanayaan maalgelinta Mareykanka ay ku sameeyaan iyo hubka tirada badan oo ay Mareykanka ka iibsanayaan. Falanqayaal badan marka waxay yiraahdeen suuragal ma tahay in haddii Mareykanka xaggiisa ay ka jeesanayaan in Ruushka iyo Shiinaha ay aadaan. Hadda marka halkaas iftiimin kale ayaa ka soo baxaysa markaad eegto warbixinta. Inkasta oo wax waliba ay isbedeli karaan, Iiraan taageerada ugu muhiimsan waxay ka heshaa Ruushka iyo Shiinaha. Waqti xaadirkana taageeradu waxay noqonaysaa dhanka macluumaadka, sirdoonka iyo dhaqaaqyada guud. Laakiin ilaa iyo hadda Ruushka iyo Shiinaha si toos ah dagaalka ugumaysan soo biirin. Oo dadka qaar waxay qabaan in dagaalka ay ku soo biiri karayaan haddii marxaladda gacanka Hormuz ay ka sii darto, halkaasina maraakiib ay keenaan iyaga oo danahooda ilaashanaya. Washington Post marka laga yimaado, wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka ayaa tuhun sidan oo kale qabta in Ruushka iyo Shiinahaba ay taageero xooggan siiyaan dhankaasi ee dowladda Iiraan. Taageeradaasi marka Iiraan maxay ilaa iyo hadda ku heshay? Warbaahintu waxay baahinaysaa in ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ay burburiyeen 2 nidaam oo THAAD ah oo nidaam difaaceedka Mareykanka ah uu keenay Bariga Dhexe. Nidaam difaaceedkan waa mid ka mid ah nidaamyada difaaca ee cirka ee ugu qaalisan dunida, waxaana loogu talagalay inuu qabto gantaalada balaastiiga marka hawada sare ay marayaan.
raadaarka ku jira marka nidaamkan wuxuu awood u leeyahay inuu ogaado gantaalada balaastiiga masaafo aad u dheer marka ay soo marayaan, qiyaastiina kumanaan kilomitir weliba markay usoo jiraan ayuu ogaanaya. Waa nidaam aad qaali u ah. Sidaas darteed marka mid ka mid ah astaamaha ugu waaweynna waa in warshadaha militariga Maraykanka ay soo saareen. Iiraan marka waxay sheegtay inay burburisay nidaam difaaceedkaasi oo yaalay saldhigga la yiraahdo Al Ruways oo Imaaraadka Carabta ah, iyo sidoo kaleeto nidaam difaaceed yaalay saldhig ku yaala dalka Jordan. Arrintan marka waxay xaqiijiyey telefishinka CNN oo Maraykanka ka soo baxa. Wuxuu daabacay sawirro muujinayo saldhigga Muwaaf la yiraahdo oo dalka Jordan ah. Sidoo kaleetana waxay daabaceen in gantaalada ay ku dhaceen raadarka nidaam difaaceedka THAAD la yiraahdo. Haddii tani ay run noqoto marka waxay noqonaysaa isbeddel halis ah oo weyn iyo awoodda dowladda Iiraan ay ku gaari karaysa xarumahaasi iyadoo macluumaadka muhiimka ah kaashanayso. Dagaalkana marxalad cusub ayuu sii gelaya markaad eegto toddobaadkan, iyadoo maalinta Sabtida maanta ay ka dhigan tahay toddobaadka labaad. Markaad eegto nidaam difaaceedka THAAD aan kula wadaago marka hore waa nidaam difaaceed ka kooban raadaar, xarun laga kontaroolo iyo sidoo kaleeto beetariyada gantaalka. Marka Iiraan waxaa la sheegay in ay beegsatay raadaarka oo ah qaybta ugu muhiimsan oo la soconaysay ama ogaanaysay gantaalada iyo waxyaabaha halista ee dhanka cadowga ka imaanaya. Haddii raadaarka la burburiyo marka nidaamka difaaca hawada maba arki karayo gantaalo ama diyaarado kusoo socdo. Tanina waxay ka dhigan tahay in Iiraan ay isku dayeyso inay indhala-aan ka dhigto ciidanka Maraykanka ee gobolka. Tan iyo markii ugu horreysay bilowgii dagaalka, sidoo kale Iiraan waxay beegsatay raadarada Maraykanka ee yaala Qatar iyo sidoo kale Baxrayn. Maalintii ugu horreysay xitaa waa tii la sheegay in raadaar muhiim ah oo yaalay dalka Qatar oo malaayiin dollar ah in Iiraan ay ku faataxaysatay oo bilowgiiba ay gantaale ee la haleeshay. Raadarada ugu dambeeyay hadda marka oo la sheegay Imaaraadka Carabta iyo Jordan inay ku burburiyeen midkiiba qiimihiisu waa in ka badan $1 bilyan oo dollarka Maraykanka. Taasina waa khasaare aad u xoogan. Waa tii Ilhaan Cumar ay lahayd maalinkii 1 bilyan iyo in ka badan ayaa suuragal ah Maraykanka inuu ku khasaaro dagaalka, waana canshuurta muwaadiniinta Maraykanka laga qaado. Sidaas darteed waa in Trump lala xisaabtamaa. Laakiin dagaalka iyo sida uu socdo markaad fiiriso isbeddelo waaweyn ayaa socda. Xisaabaad kale ayaa hoosta la iska siinayaa. Waxyaabaha soo kordhana waan arki doonaa haddii ay weyne u raalli ka noqdo. Saacadihii lasoo dhaafay waxaa weli la maqlayay dhawaaqa seeriga digniinta oo dalalka Khaliijka ilaa Israa'iil ee isqabsaday ilaa iyo dalka Iiraan. Kuwait oo kale dhammaan dadka shacabka ah waxaa loogu baaqay inay dhismo adag ay raadsadaan. Lubnaan oo kale gantaalo badan ayaa ku dhacaya. Xisbullah waxay sheegeen inay beegsadeen saldhig ku yaala koonfurta Lubnaan, halkaas oo ciidanka Israa'iil ay ku sugnaayeen. Maanta waxaad moodaa daqiintii ugu cusub inay dhacday labada dhinac markaad fiiriso. Maraykanka madaxweyne Trump ayaa hadlay oo waxa uu ka jawaabay hadalkii madaxweynaha dowladda Iiraan Mascuud Pezeshkian, kaas oo ahaa in wadahadalna ay diyaar u yihiin, madax banaanidoodana aysan ogolaanin in lagu xadgudbo. Trump marka wuxuu yiri wadahadal marnaba ma geli doono ilaa ugu dambeyntii ay isdhiibaan Iiraaniyiinta mooye, weliba isdhiibid aan shardi ku jirin. Waxaad moodaa marka inuu ka aarsanayo.